بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بميل كستو الدافع الدنيا دنجا داوانيسان هل كان واستوديو تي في قرن كصوماليات مجلة لندن waxaan idin soo jeedinaynaa barnaamij la magac baxay doorka aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee dibadda barnaamijkan oo alaaba aanu ku la faguri doona ama kaga hadli doona haduu abaydmo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan iyo hadii uu yahay kan wadankii joogaba waxa ama xaaladda kala gudboon sidii wadanka Soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa ama dib u dhis maadaama dagaal sokeeye iyo colaado baan ee wadankeena in muddo ah ragaadiyeen barnaamijkani waa barnaamijkii ugu horeeyay ee doorka aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee dibadda oo aanu maanta ku soo qaadanayno aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London isla markaana aan dhalinyaro ah oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Ibrahim Nuur oo shahaadadiisii hore ee dugsiga ama jaamacadda ku qaatay Public Administration iyo Social Policy oo ah waxa loo yaqaan PS ama Bachelor of Science isla markaana heer darajo aqoon-haneed ka gaaray Masters Finance ama dhaqaalayahan ka baxay iskuulka caanka ah ee la yiraahdo LSE ama London School of Economics ee ku yaal ama dhaca bartamaha magaalada London ee cirif adduunyada lagaga yimaado ama ka sheegan Maxamed Ibrahim Nuur aan marka ugu horeysa inta aanan ku soo dhaweyn barnaamijka idin sheega iminka waxa weeyaan waa development officer ama sarkaal horumariye barnaamijyada khaaska ah ee ay leeyihiin dawladaha hoose mid kamid ah magaalada London ama Greater London Councils waxa la yiraahdo aan iraahdo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Maxamed ku soo dhaw barnaamijka assalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh aadi aad baad mahadsantahay Maxamed waxa aan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inta aanan guda galin mowduuca aan rabo inaan ka wareysto bal in aad dadka wax yar introduction naga siiso maadaama anigu si rafa ama fayga oo kooban aan u sheegay aqoontaadii hore halkii aad ku soo barbaartay amin wadankan Ingiriiska goortii aad timid iyo waxa aad bartay waxa aad qabato جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم horta dalka Ingiriiska waxaan nimid 1991 sagaashankii ayaan nimid iskuulkii dugsigii hoose aan galnay waan ka baxnay markii dambe waxaan galay high school college baa ka dambeeyay oo 2 sano joogay markii dambena jaamacad ayaan bilaabay 2000kii 2003 baan dhameeyay 2003 markan 2003 dhameeyayna waxaan u wareegay master sameeyo oo dhinaca housing iyo finance ka from London School of Economics markaana shaqan ku helay area-dii ama wadadii aan wax ku baranayay markaa imaka 6 sano 7 sano ayaad ku shaqeynaysaa cilmigayga adiga oo mahadsan ma ku weydiin karaa cimrigaagu yani inta sano aad jirto July dan soo socota 30 jir baan noqonayaa ma sha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay nin daayara oo 30 jir ah aqoontana ka gaaray ilaa masters wadankan yimid 1991 Maxamed ma sha Allah waxa aad tahay role model wax ka qabsaday wadanka dalkiisii iyo dadkiisii diintiisana wax u qaban karaa ilmihiisii eheladiisii waalidkiisna ay hope ama sida ay u ag tahay ma ay tahayba hanan kara maadaama aadan wadadii burburka ee dhalin badan oo Soomaaliyeed ku dhacday aadan marin aad dugsi sare college jaamacad ilaa iyo masters imikana aad basii rajeynaysa inaad PhD qaadato aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan rabaa maanta inaan ka wareysto barnaamij la magac baxay doorka aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee dibadda kaga aadan dadkii Soomaaliya barnaamijku waxa uu ku saleysan yahay waxa aynu u qaban karno aqoon-yahaniinta hadii uu yahay mid ku nool Mareykanka mid ku nool Australia mid ku nool Ingiriiska maxay kula tahay adiga in dhibaatada Soomaaliya ka jirta ama ha ka jirta dhibaatada qurbaha ama wadankii sida looga bixi karo horta walaal markii dhibaatada Soomaaliya ka dhacday dalkan markan nimi mas'uuliyad baan saarnay inkastoo dadku og yihiin why loo soo qaxay why UK loo yimi laakiin maanta waxaan aaminsanay mas'uuliyad baa saaran dadkii Soomaalida ee wax bartay meel kasta ay joogaanba Soomaaliya heerka ku jirto maanta cilmigeedii ummadoodii u baahantay marka anigu waxaan aaminsanay dadkii Soomaalida ahaa ee wax bartay waxaan ku encourage garanayaa ama ku dhiirigelinayaa inay soo baxaan ay ummadooda ay toosiyaan ay cilmina ku soo kordhiyaan waxaana aan xagan ka hornayaa maanta in
dadka la yidhaha combined minds waxa weeyaan maskax wada jirta oo fiyow inay isu yimaadaan ay meeshii wax ku soo kordhiyaan oo horumara wixii dhacay way dhaceen laakiin waxa muhiim ah inaanay chapterkii hore ka bilaabin oo aan halkii raadkii hore lahayn oo raad kale la yimaadaan ama script cusub qoraala oo ummadda lagu maamuli karo okay aanu leexdo dhibaatada Soomaalida haysa maxamedow maxaad u categorize gareyn kartaa ama aad u kala qaybin kartaa waa laba nooc ma saddex nooc mid baa wadankii ka jirta midna qurbaha ka jirta bal maxaad ra'yihaaniga oran kartaa labada dhibaato nooca ay kala yihiin horta arinta cilmiyan marka la eego dadka dhibaatada xaggan keentay iyo dhibaatada Soomaaliya jirta xiriir bay leeyihiin waxaan taa ku keenay waxa weeyaan ninka Soomaaliga ama caruurteenu soo korinay dalkan jooga meeshan la doonayay ma gaarayaan culture ahaan dhaqan ahaan cilmi ahaan iyo horumar ahaanba haddaanu dalkoodu aanu stable ahayn marka waxa dhibaatada UK ka jirta iyo dhibaatada Soomaaliya ka jirta xiriir weyn bay wada leeyihiin waxaan taa ku yiri imaka for example oo kale London wax ama UK ama diaspora ama qurbaha dadka jooga waxa lagu sheegaa in lacag diraan dad bay lacag loo diraya dhibaatada waxa weeyay lacagtaasi caruurtooda bay ka maqantay jeebadooda bay ka maqantay iyo horumarkoodii xaggan marka waxa taa keenay because Soomaaliya settle ahayn oo wadankii baan degnayn marka taasi cilmiga hal biro waxa iga also iga taa ku daraya waxa weeyaan arintii ma aha lacag un dir dunidan waxa la isku maray cilmi dir iyo anigu London School of Economics waxa la dhigin jiray Chinese Swedish Malaysian oo government programs ku yimi dawladahoodii ba soo sponsor waxayna ugu soo sponsor gareeyeen inay cilmigii dalkoodii ku soo celiyaan oo ay dib ugu laabtaan Malaysia India China waxaan ku sheegay jaamacadda London School of Economics campus dan oo cilmiga lagu diyaariyo dawladda Dubai ama Abu Dhabi ayaa u dhistay iskuulka in return in 25 arday sanadkii iskuulkaasi uu aqbalo oo iyaga marka dunidii waxa meel lagu kala gaaray cilmi marka waxaan maanta ka codsanayaa Soomaalidu meel kasta ay joogaanba in ummadda cilmiga ay israadsato ay Soomaaliya horta in yar ku taabto Soomaaliya waxa ka dhacday waxa ka jirta abject poverty waxa weeyaan dhaqaale daraan ee darxuma keentay marka taasina waxay dagaal sokeeyana u sii dheer yihiin taasi marka waxay dhashay wax la yiraahdo intellectual poverty waxa weeyaan maskax ayaa dadkii faqri ka noqday marka therefore labadii marka xiriir bay leeyihiin marka aan waxna aaminsanay haddaan horumar iyo mataqaanaa iyo ideas ama ideology wanaagsan afkaar dalkii la geyn de arimahan ka hadlaya ma samaysmayaan marka waxa leedahay nin qoraa oo caana wuxuu yiri xoolaha dadku ay dhaqdaan aroortii waxa laga furaa ooda wala foofiya marka gudcurku dhacay maqrib noqotana wala soo xareeya dad min hadii aan xoolaha la soo xareyn waxa iman karta in bahal oo cuna ama ay dayacmaan ama ay lumaan qofka bini aadanka ina marka uu midaal ahaan aroortii soo tooso uu cadayda uu maydhaa uu quraacda uu fooftaga ama shaqo ama waxbarasho ama cilmi daalacasho ay xamaali tagaa at the end of the day aakhirkii marka ay shanta galabnimo 6 gaadho gurigii uu soo hidaa marka Soomaaliya waa hoygii loo hoyanayay nin aan guri lahayn ama xoolo aan xira ay ku xaroodaan lahayn waa dayacmaan miyaysan kula ahayn maxamedow maadaama aad expert ama khabiir ku tahay nolosha qurbaha dadka qurbaha jooga ilmaha waalidiinta caruurta dadka soo qaxay inay Soomaaliya tahay xiradii aan ku xaroonaynay ama geedkii aynu harsanaynay ee lama taabtaanka ahaa east and west home is best iyo gurigii aynu u hoyanaynay sa guriyahan Birmingham iyo London iyo Manchester iyo Washington iyo Sweden ku yaala iyo meelaha kale America iyo Europe ta kale Soomaalidu ma leh waynu ku soo qaxnay gurigeeni markaa hadii uu holcayo ma kula tahay inaan nagi ku noqon karno annaga waan ku noqon karnaa laakiin annaga mas'uuliyadna saaran waxa weeyaan maxay dalkii ku soo celinayna maxay maskax ku soo kordhinaynaa maxay horumar ku soo kordhinaynaa marka taasi waa mas'uuliyad dadka qurbaha jooga Soomaalida saaran weeye
تكلم كدر يعني وحوي أنا لندن ودوان كوريجا أنا هرت وحنا هرت chairman كا لندن Somali Youth Forum ما شاء الله dhalinyarada London ay suruursatay rag iyo dumarba ما شاء الله marka runtii London oo dhamaan ku wareego anigu hope baan hayaa because waxaan arifde waxaan laga Somali doctors oo Cambridge iyo Oxford iyo ka baxay waan arkay qudhay dadwana marka anigu hope waxaan u hayaa ummadan laakiin hadaan la toosin aanay meel u hayaamin ama aanay meel adeegsanin in mataqaanaa hadaf aysan lahayn then waa resource lumay oo Europe markaa ku lumay marka anigu waxaan aaminsanay Soomaalidu meel kasta joogaanba horta ta ugu muhiimsan dalkan horta in Soomaaliya laga yaqaano British passport waan wanaagsan laakiin shaqadayda meel kasta joogo baskan fuulo tareenkan fuulo in Soomaaliya laga yaqaano taasi ma lumayso ma dhumayso waa marka yaan taan been la isu sheegino mataqaanaa wax muhiim ah qofku horta wuxuu yahay markuu soo gaado ayuu markaa meel wax ku soo kordhin karaa ta kalena ku daray wax weyn dalka Soomaaliya ama xumada ama yaan xumaanin ninku markuu dal leeyahay dalkaas wax buu qariyaa نعم marka waxa weeyaan Soomaaliya maanta since 1991 dhibaatadeenii wadada taala nin kasta arka waxaan nahay open ground football field oo kale ayaynu ku daadsanahay marka su'aalo rasmi isma weydiin xageenu taginaa next 50 years contact kana soo socda maxay naga dhaxeeya oo walaalnimadeena maxaa keenay su'aalo rasmi ah Soomaalinimadu sidee bay u sii socon kartaa sabab wadankii uusan disintegrated ama u burburin ama u baaba'in marka dhalinyaradu waxay maanta ka cadhaysantahay siyaasiyiinteedii meel kasta ay joogaanba Soomaaliya su'aalo rasmi ah ummadda Soomaalida maxaa Soomaali ka dhigay ummadda ugu manay jawaabin ummadina may fahmin marka therefore ninka su'aasha kale ku diinay Maxamed waxay tahay waxa telefishinada aynu ka aragnaa ma jaraa'idada ururo wildlife associations organizations xayawaanka duurjoogta inuusan nabaad guurin lacag ku bixiyo jaaratiyaha u ururiya malaayiin ilaa UN ilaa dawladaha waaweyn ee caalamka super powerka ay lacag kaga qaadaan si conservation loo sameeyo waa inta in nabaad guur environmental ama deegaanihi uu san dhicin ma kula tahay hadaba Soomaalinimadii inuu nabaad guur ku imanayo haddii aynaan istaba qaban oo nin kasta oo Soomaali uu doonayo inuu qurbad dego qurbihiina aynu aragnay dhibaatada taala oo aan iyada u soo noqon doono ay different class tahay horta sidaad sheegtay ninku hadaan hoogiisa ilaashan imka give example dalalkan ay deganahay waxa jira wax la yiraahdo red lines khadas siyaasigu ma dhaafi karo ninka dhaqaalaha ma dhaafi karo qofka caadiga ee muwaadinka ma dhaafi karo marka waxa aniga aan Soomaaliya example ka ugu soo qaaday wax weey inagu ama siyaasiyan ama cilmigeeni ama dalkeeni ama dhaqaalaha waxaan u goosan wax inoo xeeran red lines keeni nacam marka red lines ka hadaan adiga ku sameysnayn ummad ahaan wixii ummadda isku hayay hadaan jirin dan meel kasta laga soo galiya marka Soomaaliya waynu aragnaa dhibaatada ka socota meel kasta laga soo galay waxaana ka soo galay because annagii baa wadooyinkii u furnay marka waxaad leedahay hadii aysan Soomaaliya isdaba qaban oo iman doonaan nabaad guurka ku dhaci doona raiska ama midabka loo yaqaan Soomaalida horta in mid kale ku daraya dunida ideology gooniya ka jirta tartan ideology ka jirta afkaar tartan fikradeed ama afkaar ayaa ka jirta marka taasi waxa weeyaan hadayna anagu taan mid ku darsan aynu meel u hayaan oo aynaan hayaan iyo tartan iyo hadaf iyo meel aynu higsano aynaan lahayn then taas wax ariga tribay ayaa mani weyn lumayna marka waxaan iga muhiim ah horta xageeban su'aalo rasmi ah isweydiino weeye effective creative criticism marka dhalinyarada Soomaalida way iga yaabiyaan la shirno yar 17 jir wuxuu weydiiyay wuxuu yiri Soomaaliya sometimes what it's doing buu yiri Soomaalidu waa dad qab weyn ama waa dad cilmina leh laakiin ma waxaynu garan weynaan wada noolaano oo aan isjeclaan hadaynu Soomaaliya hada waa 17 years old school buu ku jira yarka waxa ay gule marka waxa leeyahay anigu waxaan hoog u hayaa carruur waxa soo koraya rasmi ah oo su'aalo rasmi ah adag u haya umadeeni laakiin miyaynu diyaarnayn inuu ka jawaabno taasina waa mid inoo taalo anigu waxaan arkay wiil Soomaaliya oo halka ku dhashay 1993 calamo badan oo Nigeria Australia Kenya Uganda Tanzania Ethiopia ya calankii Soomaaliya ayaan isbarbar dhigay soo ku yiri kuwa European way ku jireen imisa calan African ayaa ku jira imisa European
imtixaan baan kaga qaaday si fiican inaan Soomaaliya 1993 gii dhashay marka wuxuu dhashay 93 iminka waa 18 19 galaya si fiican wuxuu saaray kow calanka Australia doon karti Soomaaliya calanka Sweden calanka UK Soomaad garan calanka Soomaaliya fiiriya wuxuu u saaray inay European yihiin black Soomaaliya si fiican kuwa Afrikaanka u garan waayay sankura calankan Soomaaligu ma European ba calankan bluega aad arkaysaa saasuntu fiiriyo xiiri dad Soomaaliya siisito Holland iyo London iyo ama yani wuxuu arkay barnaamijyada telefishinada marka wuxuu u maleeyay calan Yurubta laga leeyahay balta halkeenu marayna arag taasi waxa taa maxaa xal laga heli karaa marka horta arrintu waxa weeye horta tan ugu muhiimsan waxa weeye inanku ama inantu markay soo korayso qofku waa identity lahaado naam marka Soomaalinimada aynu wada sheeganayno kama tagayno laakiin caruurteena maxaynu u baahanay inaan ku korino meel kasta ay joogaanba inuu Soomaaliya meel kasta dhibaato ka dhacdo caruur ka tanqanaysan maanta arkayno aan lana shaqeeyana halkan anu council-kaygan aan ka shaqeeyo ama dawladda hoose aan ka shaqeeyo 10,000 oo Ingiriis aan ka ururinay oo ku saabsan mataqaana abaarihii Soomaaliya ka dhacay marka Barclays Bank iyo Heathrow Airport company-da ku jiro dhan baan isku soo ururinay habeen 900 qof baa yimid laakiin waxa muhiim ah kulay marka taas waxa tustay Soomaali dhalinyaro waxa joogta Soomaaliya meel kasta dhibaato ka dhacayso ka danqanaya marka runtii arrimahan culture-keen isku haysano Soomaali maanta waxa jirta dhalinyaro mataqaana iskar sareysiisay oo Soomaalinimadii ka baxay Soomaalinimadii way ka baxay laakiin diirad bay ku arkaan problemka dushay ka arkaan jeebadooda lacag bay ku leeystaan cilmina Ilaahay waa siiyay marka diirad bay ku arkaan waxa leeyahay meeshaas way noo baahantay laakiin action waxa la yiri action speaks louder than words ficilku waa ka dheereeya waxa loo yaqaan eray afka laga yiri marka waxa leedahay ragga waxa looga fadhiyaa ficil ah wadankii inuu aan dhaqaale la gelin maskax iyo maal iyo muruq wax walba la geliyo ana waxaan ogay dhalinyaro London Somali Youth Forum ku xidhan oo niman wanaagsan ma sha Allah dhalinyaro wanaagsan worldwide Somali students baa leedahay Soomaaliya samarkan way tagayaan oo cilmi bay geenayaan doctorin way waa niman agriculture xagga beeraha cilmiga yaqaan Soomaaliya inay wax ku soo kordhiyaan bidooniyaan marka waxaan jecelahay dhalinyarada in la soo dhaweeyo waa cilmigii mas'uuliyadna way saareen mas'uuliyadaas waxa weeyaan مسيرة سعود أمت كستبا أمت باو مقام لكن أمت داسين يجو أي مسيرة محمد تاسوها كونفليكت جرينيسا أذوق واحد دونيسا إن ضدك دي بدأ يمد أي علمي قودي أقون تودي وحي أي برتين إيه ونعكسنا ما وحن الدرس كا وحليري وح حنا كدين أنت ونعكسنا كقضية يعني دين الإسلام كو وحي قبتها قال كده قال نمكم الراعيسي لكن أخلاق ذاك لا وحيد بناء وضع نولا شهد درس لماذا إنه أمام أتسيسه أظن بيرك ودافن دين الإسلام كعقبتها وحويا وحي وناك سنايا دوني سحق إن لقيه وحكور إيمانية another element which is كي وضن كي تشوفه وحربا إنه صاقحه وصادوا شيء abject poverty هي intellectual poverty مد علمينا أو مسكحينا فخرنا ما هي مد مالهانا هي قارة أفريقيا إذا البكجر تسيب وضن كأنه من إن مدابر برسنا محا حالة الله اللي كرا brain drain يعني نكي وحيقينا وضن كي تشوفنا وصاع عررية كي وضن كي دبدي سجوجة وحيقينا ودبدي كنا جانية محا حالة الله اللي كرا أرنتها سوورته والسؤال هذا وسيادو تري combine والسؤال هذا قوي تاسوحه وبهانتي رنتي لبشة ناس لشقيان دولة أما الرجل الصومالي معمولية exactly إن incentives سميان لأن يردن كسر دويان إيو civil society نعم civil society وحوين أمد أنكون شيء دل كان لمن كان وسكو بريها waxa ku dhacay brain drain waa runta marka dawladooda waxay sameeyeen bad leedahay incentive charmalkii uu baabaa in 1940s naam American recession ma ka dhacday 1930s naam laakiin ummadda soo noqotay oo dalkoodii dhistay waa ummadaasun
wadadkii dalka iska lahaa marka waa civil society ama anigu London Somali Youth Forum ahaado ama Worldwide Somali Students ahaado ama Somali Lawyers Association ama Somali Doctors Association ummadaas uma ummadda wax ku soo kordhin karta laakiin ta kalena haylaawin ummad baa dalka joogta cilmina haysa laakiin opportunity iyo lacag baan ahayn dhaqaalihii iyo technology iyo maalgelintii bay sameeyeen ummadan marka aqoonyahanka wadankii ku dhaqan in la isku xidho weey iyo kan dibadda jooga inay isku xirmaan oo ay timaado combined mind kalmadii aad leeyahay maskaxda wada jirta maxay qaban kartaa maxamed runtii aan ku sheego anigu dhawaan bishii October ina dhaaftay waxaan isu keenay 140 dhalinyaro iyo rag iyo dumar oo dalkan ka shaqeeya doctor iyo macallin iyo engineer iyo lawyer iyo halka maxaa ka soo baxay 5 nin ama 2 nin baa is urursaday yiri dhakhtarkana taadon dhakhtarkana meesha isku barteen maanta dentist bay ka wada fikireen inay furtaan dhakhtarka ilkaha inay wada furtaan ayagoo Soomaaliya oo aan awaliis aqoon iminka inay partners in dentist dental practice ku noqdaan ama lawyer law solicitors fees avocado ama qaran samaystaan tam maxaa keenay waxa keenay isku keenidii waxay sameeyeen cilmi wadaag ta kale dunidan maanta ka socota in joogna casriga wax la yiraahdo networking maanta waxa la yiraahdo waxaad garanaysid maaha waa qofkaad garanaysid iyo wadada ku garanaysid marka waxa weeyaan nin kasta oo dalkan wax ka qabanaya qof meel wax ka qabtay uu garanay qofkii bay isbarteen waxbuu ku soo kordhiyay walaalkiina maaha hooyadiina maaha walaashiisna maaha laakiin waxa muhiim ah qofka wuxuu ku kortay cilmi inuu ku soo kordhin karo cilmigii bay ku wada shaqeeyaan wax bay abaabuleen wixii baa koray marka taasina waxa ummadda tusaale u noqonaysaa in mashruuc la wada gali karo ka imo cirif ilaa cirif Soomaaliya meesha doonto aqoontii in la isku darsan karo oo ganacsi la isku darsan karo oo lagu midoobi karo dental practice shirkad qaran ama GB practice oo kale ama ganacsi okay taa ku gartay mid baan saaxib ku daraya taas oo muhiim ah su'aashadii weydiisay dadkan soo qaxaya taasa lagu dabooli karaa oo waxay ku noqon kartaa economic iyo mental maaragtay drain ka soo socda taasa lagu qaban karaa ta kalena ugu muhiimsanna waxa weeyaan maanta heer waxa la taagan yahay aan dhaqaale iyo maskaxan laga maarmeyn marka dadka human resource dawladuna human resource ka ilaashan weydo de meel kale tagayaan marka ingiriisku ku dadaala taas oo lacag buugliya sidaanay dhaqtayaashu warunta inan ayaa walaalkii Soomaaliya jiray isaguna Birmingham buu joogay marka lacag buu u diri jiray inankii baa yiri walaalow maalin walba ha ii soo dirin dhowr boqol oo biilaha waxaad ii samaysaa ama business aan ka ganacsado si aan uga maarmo sugitaanka adiga because markii mushaharka ama wixii yaraad ii soo diraysa meel aad ka hesho aanu garan maayo way ka go'i kartaa adiga wax kugu dhici karaan xogaa yar oo aan beer ku abuurto si aan haruur ka soo baxa beerta ama afgooye ama gabiley ama anywhere Kismaayo ama Jilib ama aan يعني وقضى ميزكي أما قليدي وإيبيو يعني قناعسي أبور وكديدو يعني نيو أنا أقصد بيلايه سكده كي لا شاركة ها أيها سجون ولالكي ولا نشوف حكورن أنا غيرنا مليه سيدا نك الدرس كاه إسكول جه واحد أنا جسينا يسوع وحبر بري ما أنت كي وحبرتي جامعة صوماليا جامعة كتيرة أي ميديكال دكتور كيه ما شاء الله إلا يوغاندو تجي أو ماسترز كوسو سمعي وصار نقضي أرضي دكسية ده خاصة عافماتك أيو براوة مركل لبضنين الصوماليات منا لها وربيران فرف منا لها وحلا يبرو لبضو بوحي كعرريين economical poverty إن لوجا بحكرة أقون مركل مينان أقون كجساري كرنا دينو نهايدتك قربها dhibaatada dhaqaale ee wadankeena jirta aqoon weyn kaga saari karnaa laakiin ma hawn inaynu lacag dirno sidaad hore u tiri bilowgii barnaamijka horta laba shay baa Soomaaliya arinteeda wax ka qaban karta horta business kan la sheego
iyo cilmigu boundary ma leh حد مله حد ما leh no boundaries no boundary meel kastoo Soomaaliya tagi karaa نعم waxna uu ka qaban karaa meel kastoo tago نعم marka waxa weeyaan cilmi wanaagsan iyo dhaqaale wanaagsan haday isbarbar dhigaan de meesha waxba ka soo baxaya dalkani aan ku sheego dalkani maanta recession buu ku jiraa نعم Europe waad garanaysaa arrinta ka socota نعم laakiin maxaa arrinta lagaga saaraya cilmigii baa yaala iyo systemkii processkii lagaga saarayay economically hab dhaqaalihii budgetkii deganaa waxaan ku leeyahay lacag ma jirto laakiin iyagu waxa kalsooni siiyay cilmigii lacagta sameynaya yaala ayaa yaala ma fahanti miyayna yeelan karin inaynu inagu wixii haddii aad lawyer baratay haddii for example saxaafadaad baratay haddii aad dhakhtar baratay haddii aad baratay finance sida nimankii Chinese-ka ahaa iyo Indonesian-ka iyo Malaysian-ka LSE kala baxay ay wadankooda nin waliba tuuladii uu ka yimid cilmigu u celiyay miyana anagu cilmigii celin karin waan celin karnaa laakiin rather than intaynu lacag dirayno inaynu iska joogno galbeedka aan iska joogno aanu lacag u dirno waan celin karnaa laakiin the only way wax loo celin karaa waa horta meeshii waxa weyn horta inagu red lines keeni ma qoran siyaasiyiinteena iyo ummadeena cilmiga ahayd meel ma ka soo taaganay nabadgelyo ma helayna marka inta ka soo taaganay wax kasta way ku imanayaan marka taladan caawa soo jeedinaya waxa weeye haddii conditionku sax yahay cilmigan iyo lacagtan iyo ama ideas kan ku imanayaan then qofka encouragement buu siino dalkiisii way dhiiri gelinaysaa inuu wadankii ku laabto oo wuxuu hanti lahaa iyo aqoon lahaa kalsoonina way siinaysaa kalsooni marka already taasi way dhacday oo waan arkay laakiin waxa muhiim ah Soomaalida dadka maamulaya inay maanta isweydiiyaan caruurtooda maxaan uga tagayaa maanta dhaxalahan marka dawladahan laga hadlo institutionan laga hadlo marka anigu waan ka guuray power iyo lacag iyo waxaan leeyahay Soomaalinimada laga tagayaa maxay maanta tahay marka taasina dalkan already 300 years buu taa ka jawaabay 300 sano hore ay taa ka jawaabay marka maanta waxay u soo taageerinayaan duni kale wax ka raadiyaan duni kale inay wax ka raadiyaan oo yani hatta xidigaha in yiraahdo Neptune iyo Jupiter ma la degi karaa ma lagu noolaan karaa ma la dhisan karaa marka waxa muhiim ah horta anagu teenan ka soo baxno dan meel kale tiigsan karnaa okay aanu soo noqono marka taas tii wadankii dib u dhiskiisa ay ahayd dhibaatada taal qurbaha haday bilowga waxa A iyo B tan wadankii baynu ka dhignay waxaanu ka dhignay tii wadanka B qurbaha midan qurbaha taale hal ma helaysaa mise waxa leedahay waxa interdependent ku tahay dawan horta ku sheego laba societies baxan ka jira horta anu nasiib waxaan ku leeyahay af Soomaaliga iyo wali ma sha Allah waan eegaya aniga hadda intaan arko af Soomaaliga oo super taa waxa keenay waqtigan imid dalka on 91 ha 7 jir bana 7 jir iyo reerkayga waxay igula dadaaleen laakiin maanta waxa soo baxday carruur kale anu dhalinyarada san ku sheegay waan ku wareegaa carruur baa hooyadooda Ingiriis bay kula hadlayaan hooyadooda Soomaali bay ku jawaabaysaa isaguna Ingiriis buu celiyay hooyadii buu Ingiriis kula hadlaya mama leeyahay iyadana af Soomaali ku fahmaya adana Ingiriis buu ku celinaya taa maxaa keenaya waxa keenaya loss of identity waxa lumay xiriirkii hooyada iyo aabaha iyo afka iyo isla markaas qofka identity-giisa nationality-giisa ulumaya isirkiisa asal ahaantii halku ka yimid iyo culture-kiisa iyo dhaqankiisa marka waxaan imika arkaa dhibaato cusub oo timi qofba waxa la yiraahdaa Ingiriisku halfway house waxa weeyaan halfway house waa nus meel uu taagay garamayo waa qofkaas kale waa laga faa'iideysan karaa qofkaas oo kale waa cilmi dad ummadii ka lumay dad baan imika garanaya Soomaaliyo oo millionaire oo dadaalay oo dumar aad iska guursaday oo maaragtay oo laakiin ummadoodii aan soo dhaxgelin waa go'an kuwaas laakiin maxaa muhiim ah anigu shaqadan London ka qabtaa waxa weeyaan ummadda kalsooni siiyo sidii ummadooda ugu soo noqon lahayd okay Maxamed hadda ka horba waxaan ka qayb galay seminar waxay gala qayb galayay 5 Soomaali ah gabadh ka timid Germany gabadh ka timid Sweden wiil ka yimid Denmark iyo wiil ka yimid Finland iyo I think wiil ka yimid Norway waxay ku hadlaan Dutch
Finnish, صح. Danish, Swedish, Norge. صح أنا waxaan ku hadlaa afka Soomaaliga. Soomaaliya هيك Kingston University عجيبة صح oo Saare ku taala. فرق university. Waa isugu nimid. صح Whole seminaarkii baan isugu nimid. صح Aniga mooyaane mid af Soomaali kula hadli kara kuma jiro. بريك Anu de oday weyn baan ahay Sax weyn. oo seminaarka ka qayb galayay. صح Laakiin iyagu waa 20s وكاس ka yimid wadamadoodii ay ku dhasheen. صح U yimid wadankan inay jaamacad ka galaan. صح Marka fresh intake markay jaamacadu qaadanayso waa taqaanaa. سيف يعني ayaa waxa la bixinayay maxaa la yiraahdaa student tours iyo seminaaro ku saabsan صح waan yaabay telefoon baa u soo dhacay inantii Jarmalka af Jarmal ba bay sii daysay صح inankii halka finish buu ku daldalmaya war meedan Soomaaliya baan ku idhi waalidiintayna ma barin af Soomaali kii ugu roonaa baa af English ugu yidhi my parents never taught me marka ma waalidiinta eeda leh mise ilmaha eeda leh horta waxa ay adale culture-ka joogaan ya anu eed bravo anu eed waxaan saaraya dhaqanka iyo wadanka meesha joogaan meesha joogaan imanka timijil baan la shaqeeyaa gurigiisa wuxuu doono kaga hadlaa haye shaqadana dee nin pure English ku hadlay weeye haye gurigana wax kuma hadlayo waxaan wakaas weeye one English language ma yaal talaabada meesha waxa taala waxa weeyaan precious baa jira wax la yiraahdo precious oo umada ka timi waxa weeyaan yarka Ingiriisiga hooyadii kula hadlayeen af Soomaaliga ku jawaabiso waxa damba keentay yarkaas wuxuu u badan yahay inuu wuxuu daawado wuxuu la hadlo dadku la shaqeeyo English wuxuu la cuno qolada ilmuhu la ciyaaro kubadda ay iskuulka la dhigtaba ay inay English wada noqdeen marka tan kula talinaya waxa weeye horta afku horta research baa soo baxday dalkan iskuulada u sheego waxa researchers waxa weeye ninka qofka afkiisa markuu ku wanaagsanaado isagu iyo tahooyga uu yimina ku sii wanaagsanaanaya ma sha Allah marka hooyooyinka tan maanta taasan u sheega markaan London ku meereysanayo san mataqaana uga dhaadhiciyo afka Soomaaliga iyo dhumi qofkaas af Soomaaligiisa duu wanaagsanaado Ingiriisigiisna way wanaagsanaysaa waa research soo baxday marka Ingiriiska iskuulada baa lacag ku bixiya maanta in Bengali iyo cilmi baaris la hubo oo soo baxday weeye in Bengali iyo Soomaali iyo English iyo Arabic horta GCSE-yada la dhigo caruurtan yani opportunity helin yani dareemin inaanay meeshii kamid ahayn oo ay part of the family yihiin okay ma la oran karaa marka family-gu maadaama unuga nolosha yahay aabaha iyo hooyada iyaga u aasa ama ay saaran tahay mas'uuliyadda koobaad in aan ilmaha af ka dhumin because afka hadduu dhumo waa more than loss of identity waxa tahay nin aan dal lahayn way afkaagii nin cadaan ama hindiya kula jooga afkooday labadii hindida ahaa hadday Bengali tahay hadday Sri Lanka tahay hadday Gujarati tahay hadday Singh tahay ay kugu xamanayaan marka iyagu wax isku sheegay laakiin laba Soomaali ah oo af Soomaali wax isugu sheegi karin Soomahan wax dhakafaar iyo madax yani dhibaato aad iyo aad u weyn oo marka aan oran karno 20 sano ee wadanku burbursanaa qurbahana waanu ku burburayni horta laba shay baa jirta yani ayaanana ragga wax bartay oo adigoo kala iyo dhaqaatiirtii iminka ka qalin jabiyay sida Oxford iyo Cambridge dad badan oo ka faa'iideystay waqtiga jiro Soomaaliya oo diaspora dibadda ama family very successful miyaynan oran karin boqolkiiba 80% intii wadanku burbursanaa qurbuhuna waana burburinayay dadkana dibadda joognaa horta dad baa dalkan ay arrinani waxba ka qaban karin baa keentay marka waxay yimaadeen bad aan waxana bad aanay dabaashoodii aanay aqoon marka waxa weeyaan baddaasi waxa u baahan tahay qof si fiican uga dabaalan kara dhaqankiisana garanaya diintiisana garanaya dunidina ka qayb gali kara horumarka markaas hooyooyinka iyo waalidada waxaan kula talinayaa horta identity-ga caruurtiina bara diintooda bara then iskuulada iyo tuitionka iyo horumarkoodana ku dadaala labada hadda ku dadaashaan waxa ka soo baxaya caruur dhaqankoodina garanaysa horumarkoodina garanaysa diintoodii afkoodii dalkoodii isirkoodii halkii ka yimaadeen garanaysa محمد إبراهيم نور هذه هذا يا ضم هاتسن تهاي ومانتين برنامج كنا جلس وقيب شطو مركل أنا ولي وحكا عطسن إن another time دي وقتي وكاسة محو إن برنامج نوعا وكلا أمر دقالها أما بعرمها بالشدة عندنا جلس وقيب قشو هل كأد كلا صوتاني و
barnaamijkani waa stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London waxa soo jeedinaya anigu Cabdullaahi Xuseen Mariya barnaamijkii la magac baxay doorka aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee dibadda kaga aadan dib u dhiskii wadanka ma aha wadankii qoran dib loo dhisay xataa qurbaha ayaa diasporahi ay burbursan yihiin oo u baahan sida Maxamed Ibrahim Nuur noo sheegay in iyadana la dhiso si dalkii markaas combined mind amaba fikrad wada jira dib loogu noqdo oo ummadahan siday dalalkooda u dhisteen aanu joogno aynu dalkeena u dhisano aan marka la yiraahdo Maxamed Ibrahim Nuur aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ka soo qayb galka barnaamijka aad nagala soo qayb gashay